Windows Live Messenger isticmaalkiisa aad buu u fudud yahay. halkan waxaa default ahaan ugu qoran example555@hotmail.com. meeshaas waxaa ku qorqoraysaa ciwaankaaga. masalan omar.omar.so. meesha passwordkana passwordkaaga caadiga ayaa gashanaysaa. intaadan enter dhihin ka hor iska hubi remember me inay saaran tahay ama remember my password ama sign in automatically. haddii remember ay tahay computerkaaga hadduu yahay waa okay. haddii meel public ay tahay laakiin ka qaad sababtoo ama rab uu la soo kici doonaa passwordka. marka intan okay tahay hadda waxba ma xasuusanayo computerka, passwordkana ma save garaynayo. sign in baa inoo dhiman. MSN-ka weli waa wareeganayaa. markuu soo kaco waxaan isticmaalaynaa waxyaabo fara badan oo ka mid ah optionada MSN-ka sida kamerada, sida loogu darsado qof iyo waxyaabo badan oo lamid ah. sidaas oo kale MSN-ka cusub nuuciisu wuu ka duwan yahay kii hore 8.0, kan waa 14. saa darteed waxyaabo badan oo kala duwan bay leeyihiin oo kii hore sidaa uga baratay ma si kale ayuu isna u shaqeeyaa. MSN-ka hadda waa furan yahay, wuu furmay normally. marka boxkan baa soo booday, waa xayeysiin, waa iska xiri kartaa. marka qaybtan waxaa ku xusan meesha fariimaha hadday kusoo dhacaan tirada fariimaha halkan waa ku arki kartaa. meeshan kale waxaa isna galay optionadii oo dhinacan ku yaala iyaga dhammaantood file contacts waxaas oo dhan. marka add contact ayaa halkan kaga sii jirta. markaad taabatid qaybtan file contact yaa usii gudbaysaa, waa markaa qof ku darsanaysid add contact. haddana meeshaas kasii qaadan waxaa la mida sidoo kale batonkan halkan yaala. haddaa hal mar taabato oo aad taabatid add contact iyadana waa isku mid. marka intaas samaysid waxaa soo baxaya boxkan kale oo isna ku weydiinaya ciwaanka qofka saaxiibka ama cinwaankaa rabtay inaad ku darsatay. halkaana ciwaanka ku qoraysaa masalan somali@somali.com. waa masala oo keliya ama cali@hotmail.com wax lamida. markaa intaas gelisid hoosa u degane waxaa ku qoran next. markaad taabatid wuxuu ku weydiinaya inaa haddana send invitation samaysid. wax yar kadib markuu wareegto uu dhammaanaya. saasaa qofka ugu darsatay MSN-ka ka raadsanay mara qofka. halkaas waxaa kuga fahmnay ku darsashada qofka. qof MSN-kaaga ka mid ah oo contactskaaga ku jira oo aad magaciisa kor ka heysid halkaana ku raadin kartaa iyadana. masalan cumar ama saciid Soomaali. waxaa hadda qofkan ku darnay waa Somali@somali. markaad xitaa qortid waxaa halkan ku xusan Somali Splake wax la mida. haddaa ku dartid Somali keliya ku saari. marka automatically uu raadinaya wixii halkan kor ah ku qortid. meeshan waxaa ku qoran kartaa waxaa ratid. meesha kore magaca ku qoran waxaad ku qori kartaa options. intaa aadid halkan waxaa ku bedeli kartaa waxaa rabto. halkanna qoraal kale kadibna okay. MSN-ka hadda ma lahan qaybtii kore ee optionada file iyo tools korka ma laha. waad u yeeli kartaa adigoo aadaya qaybtan geeska oo kasii xulanaya meesha ugu hooseyso show the menu bar oo la micnaha muuji madaxa kore ee MSN-ka. marka halkaas waxaa kasoo baxay hadda option iyo file iyo contacts oo kaaga sii fudud isticmaalka qaybtan kale.
marka haddii wax fariin ay ku yaalaan halkana laga eegaa bashqada ku sawiran 1 2 3 4 tirada ku taala message-ka cusub halkaana ku arki. intaa kadib qaybta hoose waxa uu leeyahay qofkii dadka kugu jira MSN-kaaga wixii isbeddel ay sameeyeen sawirro iyo wixii la mid ah.